kadib malaayiin sano oo meeraha Maaris uu ku wareegayay xidig dhagax ka samaysan oo aad u weyn oo la yiraahdo Bay ayaa bilaabay inuu ku soo dhawaado dhulka aadanaha ay ku nool yihiin wuxuuna soo dhigi doonaa 8 sano gudahooda taas oo halis gelinaysa aadanaha oo dhan markii ay dunidu argagaxday qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay xaaladaas waxayna ogolaatay in Shiinaha uu sameeyo mashruuc la yiraahdo gaashaanka dayaxa ee qaramada midoobay qorshahoodu wuxuu ahaa in la dhiso saldhig aad u weyn oo dayaxa dhinaciisa ah halkaasna lagu sameeyo hub nukliyeer ah oo awood badan si uu u burburiyo xidig dhagaxa ee Bay kadibna dayaxa loogu adeegsado gaashaan difaaca dhulka marka uu soo dhaco yani ayaa dalbaday inuu ku biiro mashruuca dayaxa balse waraysiga lagu sameeyay kama aysan helin aragtidiisa naftiisa oo uu ku sheegay nin caadi ah inuu yahay halkii uu ka heli lahaa shaqo injineernimo waxaa loo soo jeediyay inuu noqdo ninka dayactirka mashruuca si uu u tago dayaxa ayuuna u aqbalay wuxuuna safar ku tagay dayaxa isagoo la socda koox cilmibaarayaal ah kadib 8 sano oo shaqo adag ay haayeen kooxda waxay ugu dambeyn si guul leh u daafurtay hubkii weynaa dhammaan waxay bilaabeen dabaaldeg laakiin yani wuxuu indhaha ku hayay laagsin oo ah taliyaha saldhigga waana haweeney uu aad u jecel yahay waqtigiisa firaaqada wuxuu ku mashquulaa sidii uu ugu muujin lahaa jacaylkiisa wuxuuna mar walba uu joogaa albaabka markii ay timaado laakiin laagsin xitaa ma aqoonsana cidda uu yahay maalin dambe yani wuxuu ku jiray qolka isagoo muusig dhagaysanaya isagoo isku dayaya inuu qoro warqad uu ku qiranayo jacaylkiisa dhinaca kale laagsin waxay maqashay war xun waana duufaan qoraxeed sababay in mid ka mid ah gantaalada uu wado khaldan uu qaaday taasoo keentay in qaybo ka mid ah hubkii inay ka baxaan wareegga dayaxa 27 daqiiqo gudahooda qaybaha dhagaxa ah waxay burburin doonaan saldhigga laagsin isla markiiba digniin ayay bixisay waxayna amartay in qof walba uu ka baxsado halkaas laakiin yani ma uusan maqlin sababtoo ah wuxuu xirnaa sameecadaha oo muusig ayuu dhagaysanayay dhammaan cilmibaarayaashii waxay fuuleen gantaaladii baxsiga oo way baxeen yani wuxuu ka ogaaday arrintaas markii daaqada uu fiiriyey wuxuuna bilaabay inuu gaariga uu kaxeeyo si uu u gaaro mid ka mid ah gantaalada soo haray wuxuu isku dayay inuu xiriir la sameeyo asxaabtiisa balse dhagaxa aad ayuu ugu soo dhawaaday kaasoo jaray isgaarsiinta markii uu isku dayay inuu ka boodo god aad u weyn gaariga ayaa la dhacay xilligaasna laagsin waxay bilowday gantaalkii ugu dambeeyey yaanina wuxuu ku haray dayaxa asiga keligiisa yani wuxuu ka soo baxay godka isagoo sii cararaya dhagaxyo waaweyna ayaana dhinacyada uga soo dhacayaan saldhiggii oo dhan waa uu dumay wuxuuna isku dayay inuu meel aamin ah uu gaaro markii 2 jeer ay dhibaato soo gaartay wuu miyir beelay markuu soo toosayna hubkii weynaa ayaa dhulka ku dhacay waxaana ka dhashay qarax aad u weyn oo baabi'iyay qaybo badan oo dhulka ka mid ah yani wuxuu daawanayaa isagoo argagaxsan wuxuu gartay in 8 sano ee ay shaqaynayeen ay noqdeen waxba kama jiraan wuxuu isku dayay inuu dhulka la soo xiriiro balse jawaab ma uusan helin 6 maalmood ayuu ku celceliyey wicitaano fara badan ugu dambeynna wuxuu ogaaday inuu yahay bani aadamkii ugu dambeeyey ee ku nool dunida taas ayaa niyad jab weyn ku riday wuxuu diyaariyey qol uu u dhigay sidii tacsi si uu ugu xasuusto bani aadamka saldhiggu weli wuxuu lahaa cunto ku filan ilaa 300 oo qof markaasna wuxuu go'aansaday inuu nolosha uu ku raaxaysto keligiisa marka hore wuxuu isku dayay inuu galo qolka laagsin laakiin baasweerka ku xiran wuu qiyaasi waayey kadibna wuxuu la dhacay loox isagoo ku dul heehaabaya dayaxa si uu isugu maaweeliyo maalmo kadib wuxuu isku dayay baasweero badan ilaa uu ka waashay ugu dambeyntiina wuxuu qarxis ku furay albaabka taas oo sidoo kale dharkiisiisa xitaa qarxisay haddana wuxuu helay dharka laagsin wuxuuna sameeyey sawir u eg iyada wuxuuna diyaariyey casho iyo muusig si uu u qiro jacaylkiisa uu qabay wuxuu xitaa bilaabay inuu sawirka uu dhunkado isagoo aan ogeyn in la daawanayo waxaa soo baxday in qaar ka mid ah dadkii dhulka ku haray ay nool yihiin oo ay laagsin iyo kooxdeeda arkaan muuqaalka yani dadka rayidka ah waxay ku jireen godad dhulka hoostiisa halka cilmibaarayaashuna ay joogaan saldhigga qarsoon ee xarunta cilmibaarayaasha waxay awoodeen inay ku xirmaan saldhigga dayaxa oo ay daawadaan yani laakiin ma maqli karaan codkiisa sababtoo ah raadiyaha ma shaqaynayo dhulka hadda khayraad yari ayaa haysata sidaas darteed waxay qaadan doontaa 2 sano in la hagaajin doono isgaarsiinta xitaa sanado dheeraad ah ayay u baahanaysaa in la soo badbaadiyo yani madaxa xarunta ayaa go'aansaday in xaaladan loo adeegsado si wacan wuxuuna la wadaagay dunida warbixin cusub dhagaxa weyn ee ku dhacay dhulka wuxuu kala jebiyey saxmadda dhulka taas oo sababtay tsunami waaweyn oo qariyey 30% ee dhulka magaalooyin badan waxaa daboolay dambaska foolkaanaha iyo gaasun ah sidaas darteed dhirta iyo xayawaankuna waa ay dabar go'ayaan dadka nool waxay ku jiraan godad dhulka hoostiisa ah iyagoo isku dayaya inay dhirta ku hayaan dhalooyin balse way adag tahay in la ilaaliyo iyaga oo aan iftiin qoraxeed aysan haysan cudurro iyo niyad jab ayaa ku faafay dadka ku nool dhulka waxayna heleen cuntooyin fudud oo keliya si ay u sii noolaadaan dadka qaarkood xitaa timahoodii way daadanayaan madaxa mashruuca wuxuu soo jeediyey in la bilaabo si live ah in loo daawado nolosha yani ee saldhigga dayaxa ku yaala si dadka dhulka ku haray ay u helaan rajo aad u yar maadaama aysan haysan cod waxay shaqaalaysiiyeen qof cod bixiye ah si uu ugu turjumo codkiisa una muujiyo inuu yahay geesi laakiin waxay dadka dhulka jooga u sheegtay in la helay nin ku nool dayaxa waxayna ballan qaaday in si toos ah loo daawan doono 30 maalmood gudahood qaar baa rumaysan waayey waxayna si shaki leh ugu baxeen warkeeda toddobaadyo kadib yani wuxuu galay niyad jab culus wuxuuna go'aansaday inuu isdilo markii uu tagay bakhaarka si uu u helo dawooyin uu isku dilo wuxuu arkay baakad cunto ah oo furan oo weliba jidka taala waana mid uusan isaga dhigin markuu albaabka uu furay wuxuu arkay qaab qofeed qurux badan oo jiifa isagoo moodaya haweeney ayuu u soo dhawaaday isagoo la hadlayo si taxadar leh balse markuu u soo dhawaaday ayuu ogaaday in ay tahay kanguru oo waayey waaxda cilmi baarista isla waqtigaas laakiin waxay bilowday si tooska ah in loo daawado sidaas darteed dadka dhulka jooga ee ugu horeeya ee arka shaashada
hadda waxay arkayaan kanguruga. Codbixiyihii shaqada hayayna wuxuu ku qayliyey isagoo leh waa maalin cajiib ah taasoo dadka u muujisay in kanguruga uu hadlaayo. Si uu u qariyo qaladkiisa, codbixiyuhu wuxuu isku dayay inuu fooriyo, balse taas ayaa kicisay sawaxan iyo xanaaq. Nasiib wanaag, dadka dhulka waxay u qaateen in codka dib uu u samaysmay. Sidaas darteed Laaksin waxay go'aansatay in codbixiyuhu uu noqdo midka sheekada u turjuma. Dhanka dayaxa, Yaani wuxuu akhriyay qoraalada cilmi baarista ee ku saabsan kanguruga oo la yiraahdo Konga, wuxuuna ogaaday inuu yahay xayawaan hunguri badan oo weliba dagaal badan, waana sababta ay cuntada uga dhacday saldhigga. Yaani wuxuu qaatay misaar yar si uu u helo dawooyinkiisa, balse markii Konga uu ka soo muuqday gadaashiisa, masaartiisa ayuu jebiyey. Konga wuxuu qabsaday usha wuxuuna la dagaalamay Yaani, kadibna wuu garaacay. Yaani markaas wuxuu xirtay dhar u eg kanguruga dhediga ah si uu Konga ugu soo jeediyo dareenkiisa, isagoo isku dayaya inuu gaaro dawooyinka, balse markuu u dhawaaday Konga ayaa soo weeraray wuxuuna isku dayay inuu fara xumeeyo. Markaas ayaa maaskiisa uu ka dhacay, Yaanina waa la kala tuuray. Daqiiqada kadib Konga wuxuu bilaabay inuu u gudbo qaybaha kale ee saldhigga. Yaani markaas ayuu soo baxay isagoo haysta qori weyn, wuxuuna bilaabay inuu ku rido kubado caag ah si uu kaga ordo Konga. Laakiin Konga si lama filaan ah ayuu u soo jeestay oo wuxuu bilaabay inuu isaga uu daba ordo. Codbixiyuhuna wuxuu bilaabay inuu fooriyo si muuqaalka uu u noqdo mid geesinimo muujinaya. Labadoodii waxay isku dhaceen ninkii iyo xayawaankii ilaa ay isku daaleen oo dhulka ay wada dhaceen. Qaramada Midoobay waxay bilaabeen inay ka walwalaan Yaani, waxayna isku dayeen inay la xiriiraan. Markii uu soo toosay Yaani wuxuu maqlay dhawaaq oo raadiyaha ka imaanaya. Inkastoo uusan eray maqlin, wuxuu ooyay farxad darteed isagoo u malaynaya in tani ay calaamad u tahay in dad dhulka ku nool ay jiraan. Laakiin run ahaantii, dhawaaqaas waxaa sababay dhabarka Konga oo fiilooyinka taabatay. Yaani iyo Konga waxay isku eegeen aragti wanaagsan, waxayna go'aansadeen inay heshiis ay wada galaan oo ay nabad ku wada noolaadaan. Inkasta oo Konga uu feer badan ku dhuftay, waxaana soo dhaaftay 200 oo maalmood tan iyo wixii dhacay. Yaanina welima uusan joojinin fariimaha uu dirayo si uu dhulka ula xiriiro. Isaga iyo Konga waxay yeesheen nolol joogto ah, wuxuuna Yaani sheegay inay hadda yihiin sida qoys camal. Maadaama ay u muuqato in dhulka uusan imaan doonin, Yaani wuxuu go'aansaday inuu dayactiro diyaaradii hore ee Apollo si uu isaga si gaar ah ugu duulo dhulka. Dadka dhulka joogana waxay ka doodeen haddii ay caawin karaan iyo haddii kale. Konga iyo Yaani waxay fuuleen gaariga oo waxay heleen diyaaradii Apollo. Yaani tijaabo ayuu sameeyey, wuxuuna ogaaday inay shaqayn karto haddii la hagaajiyo. Dadka dhulka jooga waxay daawanayeen isaga oo maalmo badan ay ku qaadanayso dayactirka diyaaradda. Waxaana Qaramada Midoobay ka yaabisay sida uu xirfad badan yahay, waxayna ogaadeen inuu dhab ahaantii yahay injineer farta ka xiran, balse si qalad ah loogu qoray shaqadan dayactirka ah. Ugu dambeyn Yaani wuxuu ogaaday in diyaaradda Apollo ay qaadi karto wax ka yar 20 kiilo oo culeys ah, halka Konga keligiis uu ka culus yahay midaas. Wuxuuna go'aansaday inuu Konga meel fog u geeyo si uu uga tago halkaas, balse Konga wuu soo daba cararay oo dib ayuu ugu soo laabtay. Markii ay saldhigga ku soo laabteen, Yaani wuxuu bilaabay inuu cilmi baaris uu ku sameeyo nidaam cusub oo riixitaan xoog ah, wuxuuna ogaaday in hubkii weynaa ee tijaabada ahaa uu weli ku kaydsan yahay saldhiggii hore. Konga iyo Yaani waxay mar kale fuuleen gaariga iyagoo wata sahay badan, waxayna joojiyeen safarka habeenkii maadaama gaarigu uu ku shaqeeyo tamarta qoraxda. Safarkoodu wuxuu qaadanayaa toddobaadyo sababtoo ah saldhiggii hore wuxuu ku yaalaa dhinaca kale ee dayaxa. Dadka dhulka jooga waxay ka baqayaan inuu Yaani dhinto maadaama qoraxdu ay 14 maalmood oo keliya ay ku ifto dayaxa bil kasta. Ugu dambeyn Qaramada Midoobay waxay ogaadeen in Yaani uu u socdo jidka qoraxda raacaya si uusan ugu dhicin mugdi. Safarku uu dheeraaday, balse waa ammaan oo wax dhib ah ma jiro. Hadda Yaani wuxuu haystaa 41 maalmood si uu u gaaro saldhigga, wuxuuna seexdaa oo keliya 4 saacadood maalin kasta. Maalmaha hore Yaani iyo Konga way ismaaweeliyeen, balse safarku wuxuu bilaabay inuu ku daalo. Maalin ayuu Yaani soo toosay isagoo arkaya Konga oo wadaya gaariga, balse taas waxay ahayd riyo oo keliya. Kadib markii ay si qalad ah ugu dhaceen sanduuq, labadoodii waxay ugu dambeyn gaareen saldhiggii hore. Yaani wuxuu helay madaxii hubka, wuxuuna si taxadar leh hoos u soo dejiyey saldhigga. Konga wuxuu bilaabay inuu si istaba joog ah uu u riixo badhamo, wuxuuna Yaani ka argagaxay ficilkaas. Laakiin nasiib wanaag waxay ahayd barnaamij kormeer ah oo aan qarxaynin. Markay u diyaar garoobayeen inay baxaan, Yaani oo caraysan ayaa Konga ku xidhay boorsada gaadhiga si uu uga fogaado dhibaatadiisa. Wuxuuna bilaabay inuu gaariga uu wado isagoo muusig dhagaysanaya, taasoo keentay inuusan maqlin boorsadii oo gaariga ka goday. 100 kiiloomitir kadib ayuu Yaani ogaaday in Konga uu maqan yahay, balse dib u laabashada waxay la micno tahay inuu waayi doono iftiinka qoraxda. Markii hore Yaani wuxuu sii waday wadida isagoo ka soo tagay Konga, balse ugu dambeyntii ciil ayuu dareemay, wuxuuna dib ugu laabtay si uu u badbaadiyo Konga. Dadka dhulka ku nool oo daawanayay waxay ku farxeen go'aankiisa naxariista badan. Konga oo faraxsan ayaa dhunkaday Yaani si uu u mahadceliyo. Dhinaca kale, Laaksin waxay amar siisay kooxda Qaramada Midoobay inay raadiyaan eygii dayaxa ee laga tagay howlgalkii hore si uu u caawiyo Yaani haddii la helo. Yaani iyo Konga waxay sii wateen safarkooda iyagoon seexanin sababtoo ah haddii ay istaagaan waxay waayi doonaan qoraxda. Kadib in ka badan 50 saacadood oo hurdo la'aan ah, waxay arkeen qoraxdii oo kasii fogaanaysa, balse kama aysan harin oo waxay ku wadeen gaariga xawaare sayd ah. Heerkulku hoos ayuu u dhacay, Yaanina wuxuu shiday kulayliyaha si uusan u qaboobin, taas oo keentay in batarigii gaariga si degdeg ah uu u dhammaado. Markii ay u harsan tahay 35 mayl oo keliya si ay u gaaraan saldhigga, batarigii ayaa si buuxda u dhammaaday, gaarigiina wuu istaagay. Yaanina wuu daalay, wuxuuna dibadda ugu baxay isagoo sugaya in noloshiisu ay halkaas ku dhammaato. Dhanka kale, kooxda Qaramada Midoobay ugu dambeyn waxay ku guulaysteen inay dhaqaajiyaan eygii dayaxa, balse wuxuu ahaa mid meel fog
fog u jira. Waxay isku dayeen inay ka dulbootiyaan god si ay jid gaaban u helaan, balse eygii uu dhacay wuuna jabay. Marka dib loogu noqdo Yaani wuxuu daawanayaa sawirka Laaksin oo uu ku dhejiyay muraayada, wuxuuna waqtigiisa oo dhan ku fakarayaa iyada oo kaliya. Konga ayaa arkay iftiinka muraayada ka soo baxaya, wuxuuna bilaabay inuu daba ordo sida bisadii camal. Taasi waxay siisay Yaani fikrad cusub. Wuxuu ka jaray albaabka gaariga, wuxuuna u bedelay doon barafeed, kadibna wuxuu ku xidhay Konga. Yaani wuxuu ku iftiimiyey nal yar. Kongana wuxuu bilaabay inuu daba ordo, taasoo doonta barafka u dhaqaajisay dhulka dayaxa. Ugu dambeyntii waxay gaareen god aad u weyn. Yaanina wuxuu ku amray Konga inuu ka boodo, isagoo shiday taangiyada gaaska si ay u helaan riixid ku filan oo ay ku gudbaan. Dadka dhulka ku nool ayaa u sacbiyey farxad iyo rajo darteeda. Waxaa xitaa loo diyaariyey abaalmarin loogu talagalay Yaani marka uu ku soo laabto dhulka. Nolosha bani'aadamka waxay dib u heshay rajo. Dadka waxay bilaabeen inay dhisaan dhismo cusub, halka sawiro iyo calaamado ku saabsan Yaani iyo Konga lagu qurxiyey magaalada. Shaqooyinkan adag awgeed, Qaramada Midoobay waxay awooday inay 3 bilood gudahood dib ugu soo celiso xiriirka isgaarsiinta ee dayaxa. Markii la gaaray 516 maalmood kadib wixii dhacay, Yaani weli wuxuu ku mashquulsan yahay isku xiridda qalabka diyaarada Apollo, taasoo ka adag sidii uu filayay sababtoo ah qalabku waa mid duug ah. Hal maalin ayuu maqlay dhawaaq oo raadiyaha ka imaanaya, wuxuuna aad ugu farxay maadaama rajo ay jirto. Laakiin markuu soo jeestay, wuxuu arkay Konga oo fiilooyinka ku ciyaaraya yaab badanaa. Wuxuu isku dayay inuu gacantiisa uu ku tijaabiyo, wuxuuna gartay in dhammaan shaqadiisii iyo dulqaadkii uu ku bixiyey aysan waxba tarin maadaama uu yahay bani aadamka keliya ee ku nool dunida. Wuxuuna ku qayliyey Konga ka hor inta aysan niyad jab iyo murugo cusub aysan soo wajihin dhulka. Qaramada Midoobayna waxay u baahan yihiin hal bil kale si ay u dhameeyaan hagaajinta isgaarsiinta dayaxa. Si kastaba Laaksin ma rabto inay isdhiibaan. Wuxuu isticmaalay nidaamka codbaahinta si uu ula hadlo dadka dhulka ku nool. Wuxuu qirtay in Yaani uusan ahayn geesi dhab ah ee uu yahay nin caadi ah oo si qalad ah loogu soo tegay dayaxa. Laakiin sanadan ayuu si geesinimo leh u shaqaynayay, sidaas darteed wuxuu u qalmaa taageerid dhammaystiran. Laaksin wuxuu dadka dhulka ku nool ka codsaday inay shidaan iftiimayaashooda oo ay u soo jeediyaan dhanka dayaxa si ay Yaani ugu muujiyaan inuusan keligiisa ku ahayn dunida. Isla waqtigaas Yaani wuxuu iska furay koofiyadiisa, neeftiisuna way yaraatay. Laakiin aadanaha oo dhan waxay mideeyeen iftiimayaashooda oo xitaa nalalka dekedaha waa ay shideen si ay dayaxa u iftiimiyaan si ay ugu muujiyaan in weli ay nool yihiin. Yaani oo argagaxsan wuxuu jilbaha dhulka ugu dhigtay isagoo ilmeynaya. Ugu dambeyntii marka la gaaray maalinta 613 Qaramada Midoobay waxay si buuxda u hagaajisay isgaarsiinta. Yaanina wuxuu mar kale arkay wejiyo bani aadan ah. Kadib dabaaldegaas farxadda leh, Yaani wuxuu maalmaha uu ku qaatay isagoo la hadlayo kooxda dhulka joogta, kuwaas oo hela naqshadihii diyaarada Apollo si ay ugu hagiyaan sida uu qalabka duuga ah ugu xiri karo mid cusub. Hadda Yaani wuxuu maalin kasta uu arkaa gabadhii uu jeclaa, wuxuuna dareemayaa inay noqonayaan saaxiibo dhab ah. Hal habeen kadib markii ay dayactirka dhameeyeen, Yaani wuxuu u sheegay Laaksin in markii hore uu diiday shaqadii dayactirka oo wareysiga uu ka baxay. Laakiin isagoo sii baxaya ayuu arkay Laaksin oo dhoola cadaynaysa, taasoo sababtay inuu bedelo go'aankiisii oo uu ku biiro mashruuca dayaxa. Markay Laaksin maqashay qirashada Yaani, iyaduna way qiratay rabitaankeeda. Waxayna u sheegtay in markii ay dadka daadgureynayeen ay aragtay Yaani oo ku soo haray godka, balse way iska tagtay sababtoo ah haddii ay badbaadin lahaayeen, dhammaantood way dhiman lahaayeen. Waxay kaloo qiratay inay mar kale sidaas samayn lahayd haddii xaaladaas ay soo noqon lahayd. Dhanka kale, wax weyn oo cirka ku jira ayaa u soo dhowaanaya dhulka. Maalinta xigta, Yaani iyo Konga waxay raacaan diyaaradii Apollo si ay uga tagaan dayaxa. Markii hore safarku wuu xumaaday, laakiin ugu dambeyn waxay gaaraan meel bannaan, dadkiina dhulka joogayna way damaashaadeen. Saacado yar kadib, Apollo waxay si nabad ah ku gaartay saldhigga dayaxa. Yaani iyo Kongana waxay bilaabeen inay raadiyaan meelo ay ku baxsadaan. Laakiin dhulka waxaa soo gaara war xun oo qayb weyn oo ka mid ah dhagaxii ayaa ka goday dayaxa, waxaana hadda uu ku soo socdaa dhulka. Waxay u bixiyeen magaca ah Baibalas, waana inuu baabi'in doono wixii ka soo haray aadanaha. Kooxda cilmi baarayaasha waxay ogaadeen in qofka keliya ee badbaadin kara uu yahay Yaani, kaasoo u baahan inuu u duulo hubkii weynaa si uu u burburiyo dhagaxa, taas oo macnaheedu yahay inuu naftiisa uu huraayo bini'aadanka. Laakiin ayaa la hadashay Yaani si live ah, iyadoo dadkuna daawanayaan. Laakiin Yaani hore ayuu wax walba u maqlay sababtoo ah makarafoon ayaa furnaa, wuxuuna go'aansaday inuu naftiisa uu huro si uu u badbaadiyo Laaksin iyo dadka kale. Dadkii dhulka joogay waxaa lagu amray inay galaan godadkooda si ay uga badbaadaan dhacdadaas. Yaani wuu ooyay isagoo macsalaameynaya Konga ka hor inta uusan dilin, isagoo gelinaya baabuurta lagu baxsado. Kadib wuxuu ka xeeyay diyaaradda Apollo, balse wuxuu arkay dhagxaan badan oo cirka ku jira oo jidka ka xiran. Wuxuu isku dayay inuu ka leexdo, laakiin diyaaradii ayaa dhibaato soo gaartay oo mar kale ayuu rogmaday. Mid ka mid ah matooradii ayaana halaabay. Laaksin ayaa talo siisay oo ah inuu furo albaabka si hawada ay u baxdo, taasoo joojinaysa rogmashada. Yaani wuu isku dayay, ugu dambayna wuu furay albaabka. Markaasay Apollo istaagtay, balse wuxuu arkay matoorkii oo sii duulaya, diyaaraduna hadda awood ma lahan. Wuxuuna go'aansaday inuu gacantiisa uu ku raro hubka ka hor inta uusan bixin. Wuxuu u sheegay Laaksin inuusan ka xumayn in laga tegay, wuxuuna weydiistay in si toos ah loo daawado daqiiqadiisa ugu dambaysay ee nolosha. Markaas Yaani wuxuu soo jeediyey hadal murugo leh oo macsalaameyn ah, wuxuuna si toos ah ugu duulay hawada isagoo adeegsanaya dharkiisa. Dadka dhulka joogayna way ooyeen dhammaantooda. Yaanina wuxuu sii watay hees uu u qaaday naftiisa daqiiqadihii ugu dambeeyey. Markuu u dhow yahay hubka, cadaadiska ayaa jebiyey funaanadiisa hawada, balse weli ma uusan quursan. Wuxuu codsaday in Laaksin ay qarxiso hubka. Qarax weyn ayaa burburiyey hawada. Dadka dhulka joogayna waxay ka soo baxeen godadkoodii iyagoo arkaya roobka xiddig
xidigaha oo ka dhigan badbaado inay tahay inkasta oo yaani uu dhintay 10 sano kadib aadanaha waxay bilaabeen inay dhulka dib u dhisaan oo ay qurxiyaan inkastoo shaqo badan ay harsan tahay haddana ugu yaraan waxay neefsan karaan hawada nadiifka ah gudoomiyihii hore uu fadhiistay shaqada Kongana waxaa loo sameeyay taalo xasuus ah wuxuuna ku nool yahay kayn ay kanguru kale ay la joogaan dhanka kale laagsin waxay duulisay koox cusub oo cirbixiyeeno ah si ay dayaxa u soo nadiifiyaan markay gaarto saldhiggii hore waxay sawiratay in yaani weli agteeda uu taagan yahay labadoodana ay wada eegayaan siduu dhagaxii uu u noqday giraan qurux badan oo ku wareegaya dhulka filimkeenana halkaas ayuu ku dhamaaday